15 bishii Oktoobar sanadkii 1969 ayaa la dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake isagoo socdaal ku mareeyay magaalada Laascaanood waxaana Allah u naxariistay madaxweynaha la aasay 20 bishii Oktoobar isla habeenkii xigay ayaa intaan waagu bariyin ay ciidamadu la wareegeen taladii dalka Soomaaliya 1974 oo ah sanadkii afraad ee taliska militariga uu xukunka qabsaday waxaan la weydiiyay Maxamed Siyaad Barre waxyaaladii wadanka uu qabtay wuxuuna ku jawaabay sida tan hadalku ma koobi karaan isleeyahay waxyaalaha waaweyn oo gacanka uu qabtay balse waxaan u haddaan mid ka taabto aan isleeyahay waxa ugu weyn waxay noqon karaan in dadka Soomaalida oo awalto hurday inuu hurdada ka toosay dadka Soomaalida oo awalto ogeyn iyaga dad ahaan awoodooda iyo dalkooda khayraadka ku jira iyo iyaga naftoodu waxa ay isu yihiin inay maanta garteen haddaan midwadu ka soo tilmaamana matalan waxaan نورو وقرن كراهية سوماليدو إن أي حاجة صحافة أما حاجة تعليمتا أقونتا إن يكوحرناين أجنبي ودولة كاليتو أفكود يو تعليمتو يكوحرناين لكن مركي الصومالي اللي هي الجنيه بيجمديسة إن أي النقدين تضعهانتون Soomaali cusub ayaa dhalatay ayaa markaasi la sheegay dadkana waxay u hanweynayeen waxyeelada dalka iyo dadkooda ay qaban karaan guulahaasi waxay dhaliyeen suugaan iyo heesooyin dadka qaarkii ay ku qaadaan guulwada siyaan waxaana ka mid ah heesahaasi midatan